kulanti waxaan wanaagsan daawadaan meel kasta ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha caalamka waxaana barnaamijka usbuucan ku soo qaadan doona biyo xireen koronto laga dhaliyo ka ugu weyn adduunyada Three Gorges Dam. shubka adag ee lagu xidhay biyaha webiga Yangtze ee waddanka Shiinaha ayaa noqday dhismaha biyo xireenka ugu cajiibsan dunida. biyo xireenka Three Gorges Dam dhererkiisu waa 2 kilomitir halka joogiisuna uu dhan yahay 60 dabaq oo shub ah. dhismaha biyo xireenka Three Gorges waxa uu socday 17 sanadood waxaana ka howlgalay 40,000 oo shaqaale ah. balse sanado badan oo kale waxa qaatay xaalkiisa waxaana la filayaa marka uu si buuxda u howlgalo sanadkan 2019 inuu soo saari doono koronto quwadeedu ay dhan tahay 20,000 oo megawatt taasi oo 2 jeer ka badan korontada ay soo saaraan xarumaha korontada nuclear-ka ee dalka Ingiriiska oo dhammaantood la isu wada geeyay. qaadismeedka biyo xireenka Three Gorges waxa lagu tilmaamay bog cusub oo ku soo kordhay injineernimada dhaamamka marka la eego farsamada loo adeegsaday oo aan hore loogu adeegsan dhismayaasha biyo xireenada caalamka. dhaqaalaha Shiinuhu waa mid si xawli ah u kordhaya waxaana lagu tilmaamay midka ugu kobaca sareeya caalamka. kacdoonka warshadaha ee dalkaasi ka bilaabmay ayaa abuuray baahi weyn oo Shiinuhu u qabo inuu helo quwad koronto oo raqiis ah. inta ugu badan tamarta loo baahan yahay Shiinuhu waxa ugu talagalay inay ka soo baxdo dhaamkan hadda la dhisay ee Three Gorges. kaasoo ku yaalla webiga Yangtze oo mara bartamaha waddanka Shiinaha isla markaasina ah webiga saddexaad ee adduunyada ugu weyn. ka hor intii aanu bilaabmin dhismaha biyo xireenkani sanadkii 1994 Shiinuhu waxa ay bilaabeen inay leexiyaan biyaha webiga Yangtze oo balliciisu u dhan yahay ilaa 2 kilomitir. waxaa sidoo kale meesha ku jirtay in goobtaasi laga raro ugu yaraan 1 milyan oo shacabka ku nool deegaanka biyo xireenka laga dhisayo si aanay dhibaatooyin uga soo gaadhin biyaha xoogga leh ee laga leexiyay goobta dhismaha. Three Gorges Dam is the biggest hydroelectric project in the world. Three Gorges waa mashruuc dhisme oo dhaamkan ugu ballaaran dunida. dhaamkani waxa uu isticmaalay 28 milyan oo cubic mitir oo shub ah. xaddigaasi oo ah midaan adduunka hore loo arag sida uu yiri engineer Robin Childwood. Meters of concrete. Maybe one way to look at it is to say it's a solid pipe of concrete a meter diameter right around the world. It's a lot of concrete. sababta Shiinuhu ay dadaalka intaasi la ugu bixiyaan mashruucani waxa ay tahay inuu dhaamkani koronto jaban siiyo malaayiin Shiinaysa. injineerkan Ingiriiska Robin Childwood waxa uu halkan ku sugnaa ilaa 2003 oo mashruucan dhismaha uu ka waday. We're in one of the 3 very large powerhouses of the Three Gorges project. In this 700-meter long room here. halkani waa meel ka mid ah 3 meelood oo korontadu ay ka soo burqan doonto. waa qol dhererkiisu dhan yahay 700 oo mitir halkaasina waxa ku dhex jira 14 marwaxadaha waaweyn ee dabka dhaliya waxaana ku sii xiga meelo kale oo halkan la mid ah oo ay ku jiraan tiro la mid ah dabdhaliyayaashani. halkii marwaxad amaba dabdhaliye kasta qiimihiisu waxa uu taagan yahay 50 milyan oo dollar. waana dareemi kartaa baaxadda uu mashruucani leeyahay ayaa uu yiri engineer Robin Childwood. Each one of these generators cost about $50 million. To give you an idea of the scale of this project. markaaynu tusaale u soo qaadana biyo xireenkii adduunyada ugu horreeyay ee la sameeyo waxa uu ahaa Debden Dam oo ku yaala England boqortooyada Ingiriiska qarnigii 19aad waxaana uu leeyahay
hal dab dhaliyo oo keliya. marka loo barbar dhigo biyo xireenkan Shiinaha ee Three Gorges waxa uu leeyahay 32 marwaxadood oo waaweyn. marka la isu wada geeyo dabka ay soo saarayaan waxa 5 milyan oo jeer ay ka badan doonaan korontada uu soo saaray biyo xireenkii ugu horeeyay adduunyadu. haddaba isweydiintu waxay tahay sidee ayaa tamar looga dhalin karaa biyaha. inkasta oo joogga qalcadan biyo xireenku ay tahay 60 dabaq oo ku gudban biyaha, marwaxadaha dabka dhaliyana waxay ku jiraan ubuucda hoose ee shubka. sidee ayay isu soo gaari karaan dab dhaliyayaasha iyo mawjadaha biyuhu? dab dhaliye kasta waxaa ku beegan dhuun loogu talagalay biyuhu inay ka soo galaan. kadibna awoodda biyuhu waxa ay wareejinaysaa matoorka, kaasoo isna sii dhaqaajinaya marwaxadda weyn oo u baahan quwad riixda. magnetka hareeraha kaga dhagan marwaxadda ayaana koronto dhalinaya wareegga ay samaynaysa awgeed. sidaas ayaana isu garab yaalaan ilaa iyo 32 dab dhaliye, mid kastaana ay biyuhu wareejinayaan. marka la isu wada geeyana quwadda ay dhalinayaan waxa ay ku filan tahay malaayiin shinaysa. This project is setting a new benchmark in the international hydroelectric industry. mashruuca biyo xireenkani waxa uu xariiqay rikoodh amaba heer aanay dunida kale weli gaadhin farsamo ahaan, waxaana uu 2 jeer ka sii weyn yahay daamkii adduunyada ugu weynaa ee ku yaalla waddanka Brazil ee loo yaqaanay Itaipu, oo dhismaha dhaabkan Three Gorges ka hor ahaa daamka ugu weyn caalamka, ayaa uu yidhi injineer Childwood. It's almost twice the size of the next largest project, Itaipu in Brazil. And of course, it's only the first of a whole series of megadams that are under construction here in China. webiga Yangtze dhererkiisu waxa uu gaaraa ilaa 6,000 kilomitir, waana webiga ugu weyn webiyada dhexmara waddanka Shiinaha. Geography ahaan webiga Yangtze waxa uu leeyahay astaamo badan oo dib ku noqonaya in daam laga sameeyo halkani, sida buuraha dhaadheer ee hareeraha ka mara webiga. marka biyaha la joojiyo kor ayay u kacayaan, taasina waxay barakicin kartaa malaayiin dadka Shiinaha ka mid ah oo degan dhul hareeraha webiga ah oo lagu qiyaasay 150,000 oo ekar. sidaas awgeed Shiinuhu waxay go'aansadeen in halkaasi laga raro 1 milyan oo qoys oo degan nawaaxiga webiga. hase ahaatee marka hore waa in loo dhiso kumanaan guri oo ay ku noolaadaan. We're standing here among some of the rocks and these precast concrete blocks. kuwani waa dhagxaan shuba, waana kuwii aanu biyaha ku maamulay markii aanu leexinaynay webiga si aanu dhismaha u bilowno. waana khasab inaad biyaha maamushaa marka dhismaha aad bilaabayso. manay ahayn wax sahlan, waayo webigan waa midka ugu weyn Shiinaha, waana mid gundheer. Shiinuhu waxay ku doodeen leexinta webiga ayaaba ka dhib badan dhismaha biyo xidheenka, waana runtood. waad aragtaa baaxadda dhagxantan iyo awoodda la isticmaalay. The Chinese claimed that this was the largest and most difficult diversion ever undertaken for a hydroelectric project, and you look at the scale of it, they were absolutely right. This was huge. injineeradu waxa ay dhiseen kaabadihii ugu horreeyay ee dhagxanta biyaha lagu leexinayay, iyagoo webigana u oggolaaday in qayb biyuhu ay ka socdaan. waxaana ay dhiseen 2 ka mid ah kaabadaha culus ee uu ku taagan yahay biyo xidheenku. markii saddexaadna qaybta biyuhu marayeen ayaa dhagxan iyo shub lagu xanibay, iyadoo markii dambena la dhisay kaabadii ugu dambaysay. intaasi kadib waxaa dib loo burburiyey kaabadihii markii hore lagu difaacay biyaha webiga. waxaana hadda istaabtay dhismihii daamka iyo mawjadaha biyaha webiga Yangtze. Having built such substantial cofferdam structures, it's a major challenge how to remove these things. So in the earlier stages, bilowgii mashruuca waxaanu isticmaalay qalcadahan shubka ah si aanu u xidhno biyaha. kadibna shub ayaanu ku xidhnay. markii shaqadii ay dhamaatayna waxaa loo baahday in la burburiyo dhismihii biyaha difaacayay. taasina waxay u baahan tahay in loo adeegsado farsamo casri ah oo si sahlan loogu burburin karo, waana in lagu xidhaa bambooyin gacan ku samaysa oo si hawl yar u burburin kara shubkii kumeel gaadhka ahaa.
shiinuhu si ay taasi u sameeyaan sanadkii 2006 ayaa waxay keeneen farsamo iyagoo adeegsanaya walxaq qarxa oo laga sameeyay maadada loo yaqaan dynamite taasoo lagu mudmuday gidaarka shubka ahaa ee ku meel gaarka ahaa dabadeedna waxa ay dhulka la sintay gidaarkaasi waxaanad aragtaan darbigii dhismihiisu qaatay bilooyin dhan oo burburkiisu uu qaatay ilbiriqsiyo kooban waana aragti muujinaysa in wax kasta oo la dhisaa ay muddo qaataan balse in wax la burburiyaa waa mid hawl yar markii darbigii ku meel gaarka ahaa ay dumiyeen waxaad arkaysaa in mawjadaha biyuhu ay u soo butaaceen dhinaca biyo xireenkii laga hortaagnaa intaasi kadib kor ayaa loo sii waday joogga biyo xidheenka ilaa laga gaarsiiyey 180 mitir khubarada ku xeeldheeri waxay sheegeen shubka adag ee loo isticmaalay biyo xidheenkan ay 10 jeer ka qara weyn tahay biyo xidheenka Hoover ee dalka Mareykanka taasina waxay ka dhigaysaa marka gudaha lagu jiro uu jawigiisu noqdo mid aad u qabow waxyaabaha la adeegsadana waxaa ka mid ah in baraf lagu shubay gudaha shubka iyo maadooyin kale oo sahlaya in falaaraha cadceedda xilliga kulaylaha amaba xagaaga aanay ka gudbin shubkaasi adag si aanay gudaha iyo qalabka yaalaaba kulayl u dareemin some of the summer weather being especially hot, July and August, they actually went so far as to use a fog spray system to blow effectively a fog blanket over the top of the dam with the objective of blocking the solar radiation from piling down into the concrete and adding to the heat that was being generated on the inside. xilli roobaadka webiga Yangtze waa uu buux dhaafaa si aanay fatahaadi u iman biyo xireenka Three Gorges inuu si habsamiya u sii daayo biyaha dheeraadka iyadoo la furayo 32 dhuumood oo loogu talagalay biyaha saayidka ah in lagu tuuro The design of a spillway like this has to deal with the force of the water as it drops over 100 meters in this case here, then achieves huge velocity at the bottom of the dam. injineeradu waxay wajahayaan dhibaato kale oo u baahan in la xalliyo webiga Yangtze waa midka ugu mashquulka badan dhinaca gaadiidka guud ahaan qaaradda Aasiya ee maraakiibta isaga gooshaan waxaana loo baahan yahay in taasi aanay meesha ka bixin sidaas oo ay tahayna biyo xireenku waxa uu leeyahay qayb loogu talagalay maraakiibtu inay ka gudbaan taasi oo noqonaysa in gabi ahaanba kor loo qaado markabka oo loo gudbiyo dhinaca kale ee webiga waxaana dalacaya xarka adag oo ka soo lusha shub dheer oo adag The Yangtze is a really important waterway for navigation traffic in China, leading all the way from Shanghai the coast. Engineer Chalwood waxa uu sheegay in webigani uu muhiim u yahay shacabka Shiinaha waxa isticmaalaan maraakiibta u kala gooshta magaalada Shanghai ee xeebta ku taala Yuqing iyo sidoo kale Changin kuwaas oo sida shixnad lagu qiyaasay 18 milyan oo tan sanadkii halkan waxa maalin kasta ka gudba 170 markab kuwaas oo u baahan in la dhaafiyo biyo xidheenka injineerada dhisay biyo xidheenkan ugu weyn caalamka waxa sidoo kale ay dhiseen qaybtan maraakiibta dalacda oo noqotay tan ugu ballaaran dunida to provide a more efficient transit opportunity for passenger traffic. They've built this ship lift system here which will allow boats to go through in about 36 minutes. biyo xireenkan baaxadda weyn Shiinuhu umay dhisan oo kaliya in koronto ay ka dhaliyaan balse waxaa jirta khatar weyn oo uu daboolay waana fatahaadaha webigu uu samayn jiray
waxaana la sheegaa waddanka Shiinaha 2000 ee sannadood ee la soo dhaafay in 10 sannadoodba hal mar ay dhici jireen fatahaado waaweyn kuwaas oo dad badan ay ku nafwaayeen. fatahaadii ugu darnaydna waxa ay dhacday 1931 oo ay ku dhinteen 135 oo qof ilaa 2 milyan oo gurina uu burburiyey fatahaada webiga xilligaasi uu sameeyey sida uu sheegay Mr. Charlwood. Over the last 2,000 years, there's been about one major flood every 10 years. In 1931, there was a really bad one, killed about 135,000 people, destroyed almost 2 million homes. And so this is the main reason why they've built the Three Gorges Dam, is to control this terrible flooding problem. taariikhda biyo xireenada marka dib loo raaco waxa khatar weyn ku haya ciida amaba carrada ay wataan biyaha webigu kuwaas oo fadhiista gunta hoose sanada kadibna waxay aasi kartaa biyo xireenka oo dhan. sidoo kale ciidaasi nafaqada leh ee biyo xireenku uu joojiyey waxa u baahan beeralayda degan deegaanada ka dambeeya biyo xireenka. khubarada dhismuhu iyagoo markaasi ka fakaraya cimri dherarka biyo xireenkani waxay u sameeyeen dhuumo hoose oo si tartiib ay camuuddu uga bixi karto marka loo furo. Total amount coming down is about 500 million tons per year. si kastaba ha noqotee shacabka iyo dawladda waddanka Shiinaha ayaa naf iyo maalba duldhigay dhismaha biyo xidheenkan ugu weyn dunida ee Three Gorges waxaana ay ku dabooli doonaan baahida dhinaca korontada iyo sidoo kale dhinaca beeraha. sidoo kale waxa uu daboolay khatartii muddada dheer taagnayd ee dhinaca fatahaadda ee dhowrkii sannadoodba halkaasi ka dhici jirtay. farsamada la isticmaalay iyo baaxaddiisa Three Gorges Dam waxay ka dhigtay kan dunida ugu weyn waana uu sii ahaan doonaa ilaa inta adduunyada lagu arkayo cid dhista mid ka sii weyn biyo xidheenkan Three Gorges ee ku yaalla waddanka Shiinaha. daawadayaal intaasi waxaanu ku soo koobaynaa barnaamijka amuuraha caalamka oo toddobaadkan aynu ku soo qaadanay biyo xidheenka dunida ugu weyn.